waxaynu israacinaynaa saddex su'aalood oo saddexduba ay xidhiidh la leeyihiin salaada. mid ka mid ah waxa soo qortay qof dumara waxay tiri markaan salaada la eedaamo waxaan sugayaa haddaan guriga ku tukanayo aqiimka tukashada aan salaada tukanayo mise aqiimku waxa uu khaas u yahay oo gaar u yahay dadka masaajidka ku tukanaya oo kaliya. su'aasha labaad waxay tahay haddii roob da'ayo aqiimka ma lagu darayaa alaa salluu fii rixaalikum. su-aasha saddexaad waxay tahay haddii aan ku tasbiixsado gacanta bidix miyaan ku dambaabayaa? su-aasha koowaad ee ku saabsan ruuxii dumarka ahayda gurigeeda ku tukanaysay salaadeeda ma waxay la sugaysaa aqiimka masaajidka mise marka la eedaamaba iyadu way iska tukan kartaa masaajidka inaan laga aqiimin be? waxaynu leenahay salaada jamaacadu iyo masaajidka in la yimaadaa dumarka waajib kuma aha. waxa uu sheegay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay u fadli badan tahay inay guryahooda ku tukadaan. walaa tamnacu imaa allahi masaajid allah wa buyuutuhunna khayru lahunna. addoomaha ilaahay dumarka ragow masaajidada u diidina markay fasax idiin weydiistaan. guryahoodaana u khayr badan inay ku tukadaan guryaha ayaa u asturan. sidaasi awgeed gabadha salaadeeda waxaa loo shardiyaa in waqtigu soo galo. mar haddii salaada waqtigeeda uu soo galay oo aadaanka ay ku ogaatay in salaada waqtigeeda uu galay ama calaamadihii kale waqtigaba ay aragtay iyadu way iska tukan kartaa salaadaheedii faral iyo sunnaba. aqiimka masaajidku iyada ma khuseeyo. aqiimkuna sidiisaba wuxuu khuseeyaa dadka masaajidka gudihiisa jooga oo iyaga ayaa lagu leeyahay salaadii u kaca. salaadii baa la bilaabaya oo la tukanaya. eedaankuna wuxuu khuseeyaa dadka masaajidka dabadda ka jooga oo iyagaa loo yeedhayaa lana ogeysiinayaa salaada waqtigeedii inuu soo galay. su-aasha labaad ee ku saabsan haddii uu roob da'ayo waynu ogsoonnahay aadaanka in lagu darayo sunno ay tahay in lagu daro salluu fii rixaalikum macnaheedu iyo guryihiina ku tukada. aqiimka ma la raacinayaa oo marka la aqiimayo ma la odhanayaa salluu fii rixaalikum? jawaabtu waxay tahay maya. laba sababood awgood. sababta koowaad waxay tahay arrinku waa cibaado. cibaadaduna sida ay u soo aroortay ayuunbaa loo daynaya, waxba laga bedeli maayo. salluu fii rixaalikumna axaadiida waxay ku soo aroortay iyadoo aadaanka la raaciyey, aqiimka iyadoo la raaciyey may soo aroorin. sababta labaad waxay tahay aqiimku sida aynu jawaabta hore ku xusnay wuxuu ku wajahan yahay dadka masaajidka gudihiisa jooga. waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iqaamadu dabadda umay bixi jirin ee dadka masaajidka gudihiisa jooga ayuunbaa maqli jiray. walihaadaba culimada qaarkood xataa ay ku taliyeen marka la aqiimayo in dadka gudaha jooga uu la maqashiiyo. marka dadkii gudaha joogay iyaga ma lagu odhanaya guryihiina ku tukada? de waa maya, qofkii masaajidkii uu joogaaba. ilaa aqiimka iyagu ku socdaaye maxaa loo odhanayaa guryaha ku tukada? iyaga waxaa lagu leeyahy salaadii waa loo kacay ee isu taaga. marka sababta labaad iyo sababta koobaad daraaddeed aqiimka lama raacinayo weedha guryihiina ku tukada ee aadaanka oo qura ayaa la raacinaya. su-aasha saddexaad ee ah gacanta bidix haddii aan ku tasbiixsado miyaan dambaabayaa? jawaabtu waa maya. waajib maaha gacanta midig in lagu tasbiixsadaa, waa sunna uun. sunnada qofku haddii uu ka tago ajarkii uu ka heli lahaa ayuunbaa seegaya, laakiin dambaabi maayo. oo haddaad gacanta midig ku tasbiixsato ajarkii tasbiixda waad leedahay. waxaa kaloo aad leedahay ajru liqtidaa binabiyi calayhi salaatu wasalaam. ajar aad ka helayso ku dayashada aad ku dayatay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo gacanta midig ku tasbiixsan jiray. haddaad gacanta bidix ku tasbiixsato ajarkii tasbiixda waad leedahay,
laakiin waxa ku sheegay uun ajarkii ku dayashada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo gacantii midiga nabiga ku tasbiixsaday ayaana ku tasbiixsan laakiin marnaba wax dambi meesha ma yaalo waayo qofku wax xaaraan ma samayn waajib uu dayaco ka tagana ma jiro si guudna waxaynu sheegaynaa culimadu waxay sheegaan qaacido qawaacida shariicada kamid oo ku saabsan isticmaalka gacanta midig iyo gacanta bidix الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيسا رياض الصالحين كيا كتابك مسلم وكشر رحمه وكشهده قاعدة سوحي تاي قعنت مديق وحا الله استعماليا وحكستو أرن شرفيدة ماموس مدن إيا وحيا الله قروح ذا يكو صابسا وتطلي عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله نبي وحو جعل استعمال كميدكته هذه أي نقطة كبحرشديس وكبحرشدي waxa la mida dhar xirashada kabi lugta midig baa lagu horeysiinaya maradiina waxa lagu horeysiinaya hadii qaarka sare laga xidho gacanta midig hadii qaarka hoose laga xidhana lugta midig feedhashadiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu shallaysanaya uu feedhanaya dhinaca midig ayuu ku horeysiin jiray waxa la mid ah tima xiirista waxa sunnah qofku hadii tima uu iska xiirayo inuu dhinaca midig ku bilaabo cid kale ka xiiraysana inuu xagga midig ku bilaw waana sida nabigu calayhi salaatu wasalaam markii xajka dhexdiisa uu timaa u xiirayay uu faray kii timaa ka xiirayay وفي طهور طهارة قاد شون لنا النبي عليه الصلاة والسلام مدك تكون بلابج ويسد قعنت مدك باه الرئيسي لقت مدك باه الرئيسي ما يرشد درع مدك بو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الميرج بدح لوحة إسكاله وبدح لوحة الرئيسي ريا وحيابا تاكسور كذا أردن ياري الشرفات ياري الماموس مدن على هاي ومسقشي oo kale lugta bidix baa lagu galaya masaajidkii lugta bidix baa laga baxaya gacanta bidix baa lagu istinjoonaya nabigu kaleey salaatu wasalaam uu diiday istinjadii gacanta midig in loo isticmaalo waxyaaba marka liita noocyadaas ah oo dhan ayaa xukunka qaadanaya wallahu a'lam